السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada casharkeenii koowaad ee ahaa siyaabaha ugu fudud ee kombiyuutarka loo cilad saaro ama siyaabaha ugu fudud ee kombiyuutarka xawaarihiisa loo siyaadiyo. Ma kugu adkaatay kombiyuutarkaaga sida loo cilad saaro? Ma kugu adkaatay kombiyuutarkaaga hadday ciladi ku jirto ciladda sida loogu hagaajiyo? kombiyuutarkaagu ma cuslaaday oo fayl markaad furto ma wareegayaa in badan oo ma garan waayeysa ciladan meel ay kaga jirto? kombiyuutarkaagu speedkiisu ma taqaanay ma gaaban yahay oo kombiyuutarkaagu saa'id mar kasta ma culus yahay? haddaba waxaan ku hayaa qaababka ugu muhiimsan ee kombiyuutarka loo cilad saaro innagoo marayna 6 qaab ee ugu muhiimsan ee kombiyuutarka loo cilad saaro. waa ilaa 8 qaab baa la yidhaahdaa. waxaan eegi doonaa kolkaa ilaa 8 waan marin doonaa, laakiin inagu waxaan u dan leenahay sida kombiyuutarkeenna xawaarihiisu speedkiisu saa'id faster u noqdo haddii ilaahay dhaafo. kolkaa waxa weeyaan casharkeennani waa casharadii ugu horreeyey ee mataqaanaa ee qaababka loo cilad la saaro kombiyuutarkaaga amba how to make your computer faster in 10 seconds. baleeg siduu kombiyuutarkaagu 10 second oo kastaba kombiyuutarkaagu speedkiisu marba markasta dambe u siyaadi lahaa. kolkaa waxaan bilaabi doonaa kow waa 6 qodob baan mari doonaa haddii ilaahay idhaahdo. 6da qodobka ugu horreeyana waan sheegi doonaa. kolkaa haddaba meel laga tegay leedahay waxaad taabanaysaa window plus r. window plus r run waxyaalaha run oo dhan waa meelaha documentariyada in waxyaalaha ay ku wada keedsan yihiin. kolkaa tabiska runban ayaan ka cilad saari doonaa kombiyuutarkeena. kow haddaba casharkeena ugu horreeya wuxuu noqonayaa qaab waa qaabkaasi waxa weeyaan runtaan soo saaray. qaabna waa qaabka intaad right clicka ugu tiraadid mataqaanaa windowgaagan iconka windowga intaad right click tiraadid ayaad waxaad samaynaysaa right click windowgaaga intaad right click windowgaaga tiraadid ayaad waxaad taabanaysaa run baad taabanaysaa. run markaad taabatid ka ugu horreeya ku cilad saaraynaa muxuu noqonayaa haddaba? wuxuu noqonayaa cleaner. haddaba casharkeennan qaybta ugu horreysa 6da qodob midba midka ugu horreeyaba midba midka ka horreeya dul istaagi doonaa haddii ilaahay idhaahdo. haddaba waxaa ugu horreeya clean mgr ayaan odhanayaa. sidaydii baa tegaya waa meesha windowgu ku keedsan yahay. haddaba balalka meeshani waa meesha ay ku jiraan tusaale ahaan recycle binkii waxyaalihii soo dhulugaraystay waxyaalaha mataqaanaa ee unwantedka ay loo baahnayn. kolkaa waxaan samaynaynaa downloadkaaga ma u baahan tahay waxyaalaha kugu jira ma haddaad u baahan tahay tigtaad ka qaadi, haddaad u baahnayna tigtaad qaari. temporary files internetkaaga haddaad doonaysid aniga ilaa iyo waxaa ku jira waxyaalaha aan u baahnayn oo 131 KB. download errorskaagan waxaa oo dhan tig baad saaraysaa. qayb recycle binkaagan waa kuwa ugu badan wax ku jiraan ee markaad ingiriisiga ku dhacaan. haddaad u baahan tahayna waad ka qaadi tigta, haddaad u baahnayna tigtaad saari. anigu waxaan waxba ugama baahni mid kastaba inuu kombiyuutarkayga u fududaadaan rabaa. wixii kale meel baa dhigta waxaan leeyahay okay maan leh means waxaasoo dhan are you wanted to temporary fileskaagan this delays. waxaa temporary files ma wada delete garaynaya ma hubtaa inuu delete garaynayso? yes baan leeyahay uma baahni. kolka claim buu iga dhigaya. waxyaalahana waxyaalaha kombiyuutarka uu ku fududaado weeyaan, qaababka ugu wanaagsan oo ku fududaado. qodob waa qodobkaasi kaasaan eegi doonaa. kaa kombiyuutarkaagu markaad right click tiraahdo hadduu fududaa waayo ka labaadeed marinaysaa waxa weeyaan windowgaagaad right click siinaysaa run baad taabanaysaa. cleanerkaa waan mariyey. ta labaadeen marinaya waxa weeye waa tent baan taabanaya iyadna waan raadinayaa. waan uga ogolahay waxyaalaha viruska kombiyuutarka intaas aanay virus kombiyuutarka ku jirto maxaan taabanayaa inaan dhammaanna ka delete gareeyo doonayo haddaan doonayo. waxaa jira haddaan iminka control yidhaahdo delete taabto sidaa yidhaahdo wuxuu ku dhacayaa temporary fileskayga iminka aad soo delete gareeyay ee recycle biga ku jiray
عشرة recycle بينك كليان فيروس كانوا نشيله سوري أو كسرنا فيروس إن تنا فيروس recycle بينك يومقلين وحلا control إيه مركز تابتك وهاي الجرانية دمان وحلا shift delete كمبيوتر كذا shift delete تابو وحلا إيه دمان وكسارية كمبيوتر كذا وكواد صارية ومتجريو ودافنه كمبيوتر كذا كون دافنه كمبيوتر كذا qodobna waa kaasi computerkaagu wuu fududaanayaa black way midkii waxaan gali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saddexaad midka saddexaadna muxuu noqonayaa waxaad leeyahay windowgaaga right click samaynaysaa right click baad leedahay waa inaad mousekaga right click taqaanaade waxaad leedahay run baan taabanayaa haye 10 soo ma iyadoo percentage la yidhaahdaa waxyaalaha ugu muhiimsan وأنا كحدا كويسة تم مرة قليل تم لاي ينار أنبان وحالها هو أنت وحالها لو بانين فارسة التي إم بي وفارس وحنا وحلا كانترول إيه شيفت يدلي كمبيوتر ده ما كبر كوه كيمي هذا لكن دليل دي ده سايكل بيجي كل عاد وطبعا على حالها سكيب كل يغير ذا وكل ريبيا أنت ومهم سن كمبيوتر أنت ويجومين هم اللي يقدرين كرو وياي haddana waxaa taabanayaa right click windowgayga right click simanaya run baan taabanaya tan iyadna waxa weeyaan saddexaad tan afraad ugu muhiimsan iyadna waxa weeyaan waxaan samaynayaa iyadna net cpl .cpl kana waxaan taabanayaa xirfaasidkayga waxyaalaha igu muhiimsan xawaareydu speed u noqdo xirfaasidkaygan tagaya maxaa leeyahay research egeed dhammaan walaak research baan taabanayaa waxaan leeyahay delay personal setting black okay computerkayga waa inuu sida xawaaraha speedkiisu waxa weeyaan xoog u duulaa waayahay ka kalena eegi doona haddii la idha waxa weeyaan window plus r baan leeyahay isagana waxaan taabanayaa press leeyahay okay like continue isagana waxyaalaha oo dhan viruska oo dhan baa computerka ku jira xala shift plus delete mid dhammaan u ka saaraya kaas waa ugu muhiim computerka ugu muhiim yahay wuxuu ka tagaa computerka ugu muhiim yahay waxa weeyaan kaasi qodobyadaasi waa kuwa ugu muhiimsan dadka qaar waxay tagaan intay task manager-ka computerka meelaha laga eego sidoo u socdo speedka CPU-gu waxaan leeyahay haddaba task manager baan tegayaa task manager markaan tago waxyaalaha aanan u baahnayn ee rangaraysnayn imika tusaalaan waxba iima furna waxa ii furan keliya ta task manager-kayga kaasoo keliya ta ka furan waa ka videogaan ku duubayo ayuu keliya ta ka furan wixii kale ee mataqaanaaye على task manager right click ولا task manager imika kaasoo keliya ta computerkayga ka shida waxyaalaha unwanted-ka kaas يدو دونا كروم كاكو فرادو دونا متقانا باوربوينت كاكو فرادو دونا اكسل كاكو فرادو بروسر كاكو كل كا واحد لهده اندي تاسكين بلاد انت ugu muhiimsan shaqada focus ka saar hayla ugu muhiimsan ee doonayso inaad mataqaanay ka dhax qabato wandiiso waxa kale endi task iska inta taabat endi task kaasoo ka lixaad kuwa ugu muhiimsan ee laga teekin waxa weyn computerka ka darso inaad setting-kaaga tagto oo computerkaaga update gareyso isaga badanka update-ka iska qaata ka inaad update gareyso update-kiisa check gareyso tagna waa yara muhiim oo waxa weyn updating-kiisa computerku marka soo update gareysana waxa weyn xawaarihiisa isna aad buu u saayidaa halka arday walba iyo ardayad walba waxaan kula dardaarmayaa eegana computerka ka internet-ka markaan ku fido waxay update gareynaa markaa waxa weyn update-kiisa la socota hadii la xiro kuwa qaadin waayana waa inaad tiraahdaa ma taqaanaayay update
halka update kina city ka tigta فعليا city ka tigta بعد ku qoraysa update waxa halka ku soo baxaya islaan kana ka falgareeyo city ka tigta marka tagtaa ayaa yar la soco halkaas update ku qoraysa ka ku soo dhigay update check your update bad leedahay ka update ka faaq la socnaysa update ka guna ka qayb qaadanaya degdega xawaaraha speedka computerka halkaasan inaasan ku soo gabagabeyn doona hadii la yiraahdo oo ah asaasiyadka ugu wanaagsan amba ugu fudud ee computerkan loo cilad